marka waxaan u jeedaa qiso aan in yar rabo inaan soo gaabiyo ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka iraahdo qisadaasi waxa weeyaan anoo jooga meel la yiraahdo Nidaamuddin waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga غير مرغوبينka ah oo ku taala India ayaan casar assalaamu calaykum markaan sidaa aan u tukanay baan waxaan arkay nin blue eyed ah oo European ah oo dhinacayga ku tukanaya markaasaan ku iri markaan salaadii adkaati dhamaysanay baan ku iri kullay European baad u egtahay diinta kuma cadalanina ma ii sheegi kartaa sida diinta ku soo gashay markaasuu yiri waqti ma haysataa markaasuu aan ku iri ha waa haystaa qisada ma sheegi karaa barakallahu fiikum marka waxaan wuxuu yiri anigu waxaan ahay German-kan ku nin German ahay waxaan ahay mechanical engineer Philippines baan u guuray buu yiri waxaan guursaday qof dumar ah oo ah buduu diinta buduuga haysata wiil bay ii dhashay wiilkii markuu jaamacad levelkeeda gaaray wuuna dhibay iskuulkii si fiican jaamacadda u tagi maayo mukhadaraad arrimo waxa anagu la liidana maanta dambe ii mid wuxuu yiri aabe waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo markaasaan ku yiri oo aabo diimuhu waa badan yihiin maxaad islaamka ku dooratay markaasuu yiri aabo wiilal baan jaamacadda la dhigtaa oo haddii ay aabo sheekeeyaan run bay sheegaan oo aabo haddii ballan galaan way oofiyaan oo aabo haddii nin miskiin arkaan way caawiyaan oo nin weyn haddii arkaan da'ah way xishmeeyaan mid yar haddii arkaan way u naxariistaan aabo sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay sidaas awgeed diinta tan waa diin wanaagsan ii ogolow markaasaan ku yiri aabo you are a grown up man no impact your choice is your choice markaasuu laakiin hooya ii diidan oo maxay ku leedahay waxay tiri waraa anaka diin saddexaad nala soo geli ama sida aabaha Kristan noqo ama sida anigu aan ahay buduunimada ila soo gal markaas masaas ku tir ha qarina keen wuxuu yiri talaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u maleynay Ilaahay inuu igu naxariisto aniga islaamnimadan igu siiyay wuxuu yiri wiilkii ina keen baan ku yiri markaas aan islaamtu tigaya wiilkan ma kula hadlay markaas tir ha oo muxuu ku yiri sidaa ومحد كتير ده وحنا كوري أنا كلامنا ديمود من سدح رجال سوقل أنا قدين تنا بدوجة هايستو مركي أنكو كورسني مين أنا جو كهلا هذلي مركز أنا اللي ترمايا هذا أنا ويل كي هيجلا حد دين تو ربع حقاته هيجلا حد ويل كي مركي يوم بنورش يسيس بدشي صبح نك أنا كو كعين كرويني وهكعيا مساجد بآدية وإيمانية قراء وناصم هي مام داد breakfast ready markaasaan gacanta inta sida iraadaan saa oo yaagaawiliyad aynaadaan ma aragta ninka diinta u diidaysay wuxuu yiri habeenkii masaajid soo qaatay lugaha iyo xidhan buu noo doogaa wuxuu yiri wiilkii baan jeclaystay maalintii dambe isagoo socday apo very serious baan rabaa inaan kala hadlo waan maxay aabo sidoo ma san waan jeclaystay wiilkii wuxuu yiri aabo waxaan rabaa diinta inaad la soo gasho islaamka markaasaan dib u yara fadhiistay markaasaan iri buu yiri anaa fikiray buu yiri wallaahi diinta wiilkaaga sida u bedeshay ee sidaa ka dhigtay alla ilaa diintan inay diin tahay markaasuu aan ku yiri my son I am ready wuxuu yiri inanka intuu farxay buu igu soo booday oo ii dhunkaday markaasaan sidii ku waxaysanay wuxuu yiri shahaadada uu qabtay 3 maalmood oo tabliiq u saaray jaamacad buu igu daray salaadii baa la soo baray haddana maalmihii baa la ii kordhiyay diintii baa xoogaa la iga soo baray waan soo noqday markaan ogaaday oo kutubna la siiyay inaan naag labaad guursan karo baan islaantii u tagay ayaa gabdho داودين أقوله هيا دقيسو أنا ودين عصب أنقلي كودي دين تأنقلي وحيو كوش أفرين أنقورسدو مركا هو كل قورسن يا أوجو مركا ستريا هيا تس دين تهذا سلا قبته قبل بنقورسد مسلمة
وحير حق إذا نسينا وأتقنا هديت بانو جيا قبل بانو حي تبي وحير شقالها يجي يماشي نلا شيء يورن بايس بدل شيء تعلين تانو كو قبلنا ماشي ورشد بانو لين هاي تعلين تانو كو قبلنا شقاله هذا وانا ربحان وايس بدل مربع قلا سطح بري بحذا مربع فرتن بري بحذا برواقو وانا شحني واللي يباني ما أنت دمبه سلانتي أرديسة أيها نوتي كب أيها محبة حوارتك أنا هذا المسلميو وأنا وجه ذا ورهوي لمن كان عد كتيرة بارير كيورن تسبب النقطة إذن كنا سيدا عادية شا معها وهبكينا تقنك أتكون تقنتان بعدتك أما الدين تجعل سينية أما كفوينية waxaan idinku soo gabagabeynaya ninka isaga ahaa wuxuu yiri muslimiin hadda maxaa qorshaha uu yahay baan wuxuu qorsheeyay waxa weeyaan 4 bilood baan baxsanahay bil waxaan joogayaa India 3 biloodna waxaan u socdaa buu yiri Germany aabahay wuxuu ku dhintay bil gaalnimo awowgay gaalnimo ku dhintay hooyaday gaalnimo ku dhimatay ayeeyaday gaalnimo ku dhimatay wuxuu yiri muslimo maxaad ilaahay xageebaad barito ka gali doontaan marka ay waxaas idinku nicmada haysta intaad meel la fadhiisateen aad tirahdeen dadka nicmada ayaan loo geeyno yaan la siinin xageebaad ilaahay ka gali doontaan maxaad ku hadli doontaan idinka sabab u noqday in aabahay maanta jahannamo ku jiro hadda waxaan u socdaa buu yiri adeerkay iyo adeeraday inaan ka gaaro inaysan jahannamo galin ka walaalay waxaan uga jeedaa idinka mas'uuliyadaas idin saaran tahay dadka aad la dhigataan waa population idinka badan weeyaan population kan inaad ku dadaashaan إنما الأعمال بالنيات حتى نيتك كان نيته دقن كينا حاجاتية ده كان هذا هبينك كنت عيسان وصلاة الليل كتكتان وأترى إلهي يوم أنا كنت ما أنت واد ذا اللي وصامرني وأخلاق دي وناسلنا واتصني إلهي وتطك كان ده هذا يده أفر وهو حي إلهي وأفر يا